marka hore Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay asxaabta ku xiran warbaahinta Xuraansi meel walbo aad joogtaan markana waxaan guda gelaynaa wararka la xiriira arrimaha dhanka siyaasadda iyadoona wararka soo baxaya ay sheegayaan in wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku guuldareystay damciisii ahaa raadinta badda cas sidii Itoobiya ay u gaari lahayd in Itoobiya ay garab ka hesho dhanka iyo Turkiga iyadoona warbaahinta gudaha dalka Itoobiya intooda badan ay sheegayso arintaas in ay guuldareysatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dareemaya culays xooggan oo dhanka siyaasadda isagoo dhaqaale badan ku bixiya dhismaha ciidamo badda ah oo Itoobiya ay leedahay kuwaas oo Imaaraadka Carabta ka garabsiiyay sidoo kalena ciidankaas uu tababaray waddanka la yiraahdo Faransiiska ila wareedyo kala duwan ayaa waxay dhanka kale ku waramayaan in dagaalkii sokeeye Itoobiya ee dib u bilowday horeyna u jiray in uu saameyn weyn ku yeeshay marka la eego qayimka ama qiimaha Itoobiya ay ku dhaxlahayd wadamo kala duwan Turkigana uu kamid yahay waxa uu sudhac ballaaran uu ku yimid arrimaha dhanka siyaasadda iyadoona maalmihii u dambeeyay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira sidii Itoobiya arrimahaas ay la fargali lahayd sida ay sheegayaan ila kala duwan warbaahinta Xuraansi ayaa isha soo marisay warbaahinta inta badan baraha bulshada u badan ee Itoobiya iyadoona arintan aad loo hadlayo Abiy Ahmed ayaa ku guuldareystay in uu Turkiga ka dhaadhiciyo qorshe mid ah oo lagu maalgelin karo Itoobiya si ay u sii dhaqaajiso ciidankeeda badda sida ay sheegayaan warbixinada iyo xogaha tooska ee la helayo saraakiisha iyo mas'uuliyiintu waxay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhankaasi iyadoona mas'uuliyiintan intooda badan ay tilmaameen in ay wadaan abaabul iyo qorshe la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafkaasi ah in la sameeyo isku dayo kala duwan Itoobiya ay ku doonayso sidii ay u raadsan lahayd marinka ay doonayso sida ay sheegeen ilahaasi kala duwan mas'uuliyiintan ayaa dhanka kale waxay hoosta ka xariiqeen in muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaalo kala duwan oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka weyn Itoobiya ay u aragto inuu yahay mid muhiim ah oo dhanka badda cas Itoobiya ayaa marba dhinac waxay ka raadinaysaa qaabka ay u soo geli lahayd marinkaasi mar waxay eegaysaa dhanka Soomaaliya laakiin waxaa jira dadaalo kala duwan oo ciidanka badda iyo kuwa cirka Soomaaliya dibadhis xooggan oo ballaaran loogu sameynayo isla Turkigana uu qalab casri ah uu siiyay tan kale waa in ay damacdo sidii Eritrea ay u weerari lahayd isla markaana ay u qaadan lahayd qaabka ugu fudud dekada Casab halkaas oo Itoobiya aanay si fudud u gaari karin marka la eego iska caabinta Eritrea iyo diyaar garowga xooggan xukuumadda Asias Afwerki arintaas ay ka wado safarkii Abiy Ahmed 2018 uu ku jabiyay gidaarkii siyaasadeed ee colaadda ee u dhaxeeyay Itoobiya Eritrea ayaa loo arkaa inuu ahaa mid uu ku sahminayay dhanka iyo waddanka Eritrea isagoo ujeedkiisu ahaa qaabkii uu u indheelaha arrimaha badda ee la xiriira damaca Itoobiya waalaya safarkan ayaa la barbar dhigay mid uu ku tagay Masar ugu dambeynna uu ku ogaaday xaaladda siyaasadeed dalkaasi iyo meelaha laga soo mari karo waana markii uu ku dhaaranayay in uusan Masar ka shaqeyn doonin wax walba oo dhibaato ku ah taas ugu dambeyn hadalkaas uu noqday mid aanay dhulka laga soo qaadin maadaama uu ku dhaqaaqay biyo xireenkii Masar ay diidneed in Itoobiya ay sameyshato waddankiisana uu dunida u soo bandhigay horumarna uu ka sameeyay marka la eego dhankaasi ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa loo arkaa inuu yahay shakhsi siyaasad ahaan inta badan jecel in uu Itoobiya wax uu uga tago taariikhda waddankaas marka la eego taasoo keenaysa in uu meelo waaweyn qabsado sida arrimo la xiriira ciidamo badda arrimaha sidoo kale ku saabsan helitaanka marinbadeed iyo damacyo kale Itoobiya oo ka qabo hayeeshee dalkiisa ayuu geliyay dagaal sokeeye oo sarkiisu ahaa doorashada Itoobiya ee sanadkii 2020 Abiy Ahmed ayaa loo arkaa inuu yahay shakhsi siyaasadda gudaha Itoobiya ku fashilan laakiin dambanaanka doonaya inuu xoog saaro wadamo far badan ayuu cilaaqaad ka raadsaday laakiin waa uu ku guuldareystay waana ta keentay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladdiisa ay kala baxaan isla markaana ay aadaan ismaamulada ay ka soo jeedaan sida Tigray Oromo iyo dowlad deegaanka Soomaalida sida ay sheegeen ila kala duwan
mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska Abiy Ahmed ayaa maalmihii u dambeeyay waxay kula talinayeen inuu ka fogaado wax walba oo keeni kara burburinta heshiiskii Pretoria dalka Koonfur Afrika ka dhacay waxaana arrintaas loo arkaa inay tahay mid colaad hor leh Itoobiya u horseedi karta oo haddii xilligan aanay suurgelin in gacmaha laga qabto colaadaasi baladu ay faafi karto meelo kala duwan oo dalka Itoobiyana ay gaari karto wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsantahay daawashada iyo ku xirnaanta janaalkayga